رمضان شهر التوبة والغفران. ومحاي معناها مقع رمضان بعض دات الإسلام كأوحى يسويدينيان أصلان هلكو كيمد دوقة أما مقع رمضان أيضا أولو كلا دوينيها يبدوقة أمان وضمد الإسلام كأهي داتك الإسلام كأهي رمضان وحلوغو دوقة دوقة كلا دوان سيدا رمضان أما رمضان وبيش السقالات يجدولك تاريخ الإسلام وأنا بيش داتك مسلمين تاهي دمانتو داي سومان ayagoo tixgelinaya sida uu farayo kitaabka quraanka kariimka ee diinta islaamka. bisha ramadaan waa waqti dadka islaamka ahi ay soomaan waqtiga maalinkii isla markaana ay cibaadaystaan habeenkii iyaga oo tukanaya salaado ka dheeraad salaadaha waajibka ee shanta kuwaasi oo kala taraawiix iyo tahajjud. sidoo kale bisha ramadaan inta ugu badani waxa ay ku dhamaataa 29 maalmood ilaa 30 maalmood waqtigaasi oo laga bilaabo aragtida bisha barakeysan ee ramadaan ama dayaxa in la arko inay dhalatay bisha barakeysan ee ramadaan. sidoo kale laguna furo aragtida dayaxa dhalashada bisha shawaal ee xigta bisha ramadaan. bishani waa bil dadka islaamka ahi aad iyo aad ugu muhiim waa bisha ay waajib ku tahay dadka islaamka ahi inay soomaan amaba inaanay waxba cunin inta ay qorraxdu soo jeedo. sidoo kale raad gaar ayay bishani islaamka ku leedahay dhaqan ahaan waana bisha uu soo degtay quraanka kariimka ahi. sida culimada badan intoodu isku raaceen erayga ramadaan wuxuu asal ahaan ka yimid erayga carbeed ee af carabiga kaasi oo ahaa ramiida ama arramad taasi oo macnaheedu yahay kulayl ama qalayl. soonku waa mid waajib ku dhammaan dadka muslimiinta ee qaangaarka marka laga reebo qofka xanuunsan kan safarka ku jira qofka da'da gabowga aanan soomi karin dumarka uurka leh ee aanan awoodin inay soonto bisha ramadaan sidoo kale hooyada naaska nuujinayso iyo dumarka dhiigga caadada u jooga. sida ku xusan taariikhda islaamka soonka bisha ramadaan waxaa la waajib yeelay sanadii 2 ee hijriga waqtigaasi oo dadka muslimiinta ka soo qaxayn magaalada Makka ayaga oo soo qaxaya magaalada Madiina. qiimaha ay qadarta diga mudan oo halkaasi ayaa barnaamijkeeni ku soo afmeeri doona anagoo ciwaanada xiga ugu hadli doona fadaa'isha ay leedahay bisha barakeysan ee ramadaan. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa dhammaan inta ku soo aroortay axaadiis aan awoodno iyo aayadaha quraanka kariimka bisha ramadaan oo bil dhammaan dadka islaamka anfacaysa in looga hadlo waxyaabaha buriya ramadaanka iyo waxyaabaha waajibka ku qofka muslimka ee soomaya in uu la imaado niyad ahaan iyo camal ahaan. tan iyo inta ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga sidaas iyo amaana Allah.